كان قدامنا سواء مغالبيات مهتمين أفريقيا وتقتلانية إما قال الفرنسي وركجون كشك ما تحقق قادنا إذا بشيء تاعي لواتي شن بشيء لبي تواناد لواتي لبو وركجون كشك ما تحقق قادنا يا مدحوينا دولة الفدرالية الصومالية حسن الشيخ محمود إيه رئيس الوزراء حمزة ولبو ضبك hadlay dhacdooyin aan hore soo sheegi jirnay oo farmuuqaale jirnay ay haddana la qaateen waa soo dhaweynaynaa waxaan diyaar u nahay waxyaalo badan aad ogeyn in idinku kaabno haddiina la qaadanaysaan madaxweynaha jimcihii ayuu masaajidka al-shuhadaa ee villa Soomaaliya ku dhex yaalo oo waxyaalo badan ay ummadda u riyaaqeen oo ka sheegay dadka ilaa 5,000 iyo horodooda ee dawladdu u shaqeeyo inta ka shaqo tagto iyo inta duurkeeda iska wareegto iyo inta ayagoo Mareykan iyo adduunyada jiraan mushaarkooda iyo adduunkooda qaataan ra'iisul wasaare Xamsa oo ra'iisul wasaare nadiif ah oo maanta wax dadkana ah oo ummadaas ka galay ayna jirin wax lagu tilmaami karo ayna jirin qalad ilaa hadda sameeynin asiga ayaa asigana ka hadlay asoo ku wargeliyay madaxweynaha maadaama shaashada wax laga kontroolayo meel kasta ay taalo madaxtooyada ay taalo agtiisa ay taalo meelo badan ay taalo shaqaalaha shaqada galo waqtiga ay galaan waqtiga ay ka baxaan idoo horumar fiican ay tahay taas waxaas la sameeyay ayay soo bandhigeen inta shaqada ku jirto iyo inta ka maqan fasax jirto iyo intaba aan soo xaadirinin oo mushaarkooda dibadaha ku qaato hotel banaanka ka deg adduunyada degan horta waxyaalo badan ayaa wadankan ka jiro oo loo baahan yahay ummadda sida hadda u soo bandhigteen in la soo bandhigo anaga diyaar idin nahay waa idinku kaalmeynaynaa waxyaalahan ognahayna waa idin soo gudbinaynaa anaga naceeb waa idin nacbnahay male shalay maxamed cabdullaahi farmaajo ayaan dabada haysanay idinka waa timaadeen ra'iisul wasaaraha horta sidiisaba wax lagu eedo oo lagu dhaleeceeyo haba yaraatee ma leh madaxweyne xasan wadankan madaxweyne ka soo noqday 4 sano iyo 6 bilood ayuu wadankan soo xukumayay waxyaalo badan aan ku tabayno aan macnaa ku dhaliilayno oo badanaa jiraan waxyaalo wanaagsan oo wadankan uu horumariyay oo sameeyay way jiraan marka wixii wanaagsanaa waa waxaan wada rabno waxa dhaliisharana waa ka hadlaynaa madaxweynahana waxaan ka baryaynaa wali 4 sano ayuu u haystaa mandate inuu wadankan hor u mariyo ama dib u dhigo mase dhulka uu geliyo mase buubiyo madaxweynaha asaabidaas laga rabaa anaga waxaan diyaar u nahay haddii wax wanaagsan suubin wax wanaagsan oo suubiyo aan dhahno haddii waxyaalo khalad aan ka aragno khaladka aan sheegno marka waxaan leeyahay labadoodaba ihsabu nafsakum qabla ma tahasibu anfusakum horta idinka naftiina daahiriya si aad u daahirisaan kuwa kale aad madaxda u tihiin laakiin ogaada qaladka idinka yimaado kuwa kale waa jidkii mari lahaayeen ayaad u fasheen laakiin idinka qaladka haddaad qabataan aad idinka iska qabataan nin wax suubi karo xun ma jiro mana rabo inay arinta ahaato afka baarkiisa ummadda inaad wax qabateen aad u muujisaan laakiin dadka waxaan ku kacay aan waxba laga qaadin mid kale oo rabo wax waaye aan rabo inaan idinku ta'kiidiyo idin sheego waa haddaad wax ka qabanaysaan sidaad haddad wax uga qabateen waxyaalaha qaarkood aan sheegnay waxaan rabaa in indhahaad u celisaan niisa wax aan fiicnaynaa ka socdo niisa maanta waxa ka jiro waa waxyaab leh
ووحان أن جعلي سنين إن ميلها كشك شغنو مربنو نين أن شلو أركيني إنو يهي نين هليئة أو وطن كان دباتديس أندن قنايو أنو أركيني إنو يهي نين دادك وطن كان بربورينايو كون إيمانايو هدي مانتا هي أدى مدح لوغا دغي waxyaalaha dhaxdeeda ka socdo aan hayno ilaa iyo hadda aan rabin inaan wali banaanka soo dhigno waxa idin leeyahay madaxweyne xasan sheekh iyo ra'iisul wasaaraheena sharafta leh oo ilaa iyo hadda wax dambi aan ku haynin wax qalad aan ku haynin waxaan rabnaa inaad indhaha u celisaan niisa waxa ka dhax socdo maalin hore waxaa la yiri kaydka hubka ayaa qarax ka dhacay meel hub yaallo ay xabada yaalaan qaraxii ka dhacan waxaan filayaa shibisoo dhanaa wax gaari lahaayeen inuu qolkii le ku ekaado suuragal maaha laakiin anaga warka aan hayno waxa waaye in meeshaas wixii yaallay la rartay 3 baabuur lagu raray meeshii la geeyey xataa warkeeda waa na soo gaaray laakiin hadda ka hor dhicmeyno waxaan rabaa madaxweyne xasan sheekh iyo ra'iisul wasaaraha hal waxaan jeclaan lahaa inaan idin sheego haddaa ila qaadanaysaan si aad madmadowga maanta ka jira muqdisho iyo amni xumada ka jirta muqdisho looga baxo waxaan rabaa inaan idin sheego waxaa keensateen ciidamadii Eritrea jiray 3 sano iyo bar ilaa 4 sano ayay jireen waxay saliim ka yihiin dawoogada ma ahan dad jaad cunayo ma aha dad mudmin ah oo droog raadis ma aha waa niman Eritrea ka yimid oo Eritrea ee xaaladeeda aan ognahay nimankaas waxaa la idin leeyahay aniga talada idin siinaa waxay tahay nimanka 400 hadda soo hormaray intooda badan checkpoint-yada laga soo galayo iyo meelaha cabsida laga qabo dhalinyartaas hala geeyo karooti ma aha laaluush ma yaqaanaan tuuga ma aha hebel lacag ka qaada ma yaqaanaan meesha ay ka yimideen waa meel shuuciyada ay ka shaqayso oo ninka xataa wax meeshaas yaala u qaadi karin marka waxaan idin dhihi lahay sidii muqdisho ay nabad u noqoto horta dhalinyartaas isgoosyada hala geeyo markee shacabkana si nidaam ah oo la shaqeynayaan shacabkana raalli ka yihiin waa ilmo nadiif ah waxa idin dhihi lahay 400 hadda timid inteeda badan muqdisho ha lagu daadiyo checkpoint-yaashoodana hala dhigo sidaan horta uga baxno askartan korootiga ah askartan baratay inay jaad cunto askartan baratay inay laaluush qaadato askartan caado ka dhigatay isoo tuur $2 isoo tuur $5 isoo tuur baratay si loo waxeeyo aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay dowladda inay nala qaadato waxyaalaha annaga aan u sheegayno annaga waxaan uga bedelnayna habeenaatee male laakiin kelmadan irir waxay ahayd idinka horta kow ra'iisul wasaare iyo madaxweyne horta kow idinka isxisaabiya marka idinka isxisaabisaan ayaa loo baahan yahay in kuwa kale aad xisaabisaan waxaa kaloo meeshaan ku jiro aan rabaa inaan meeshaan madaxweynaha aan maqalsiiyo aan taabsiiyo shalay khudbadu akrinay markii uu dhahay ninka shabaab kalkaalo ninka shabaab odigii raaco odigii waxeeyo qofkii daba socdo qofkii la xiro qofkii daba socdo waa shabaab ninka shalay aad lahayd madaxweynuhu hadda waxaa la sheegayaa nimanka odayaasha ahay kaaba qabiilada ahay ee Saleymaal ee shabaab aadeen ee danahooda la soo fulsadeen inay gurigooda ku soo noqdeen oo ninka kula jooga meesha maxallaha madaxtooyada Buqaari oo nimankii hal in la xiro la rabo diiday in la xiro
meesha asmaa madaxweyne ka ah mase adaa madaxweyne ka ah haddaad meesha adiga aad ka tahay cabdilma'muur nin hooshale loo dirsado ee madaxweyneyaal kale meesha ay joogaan ummaduu sheeg haddii kale shalay amraa bixisay odayaasha beesha xaaji saleymaal waa ina la xiraa odayaashaas waxay jibiyeen kelmadii adiga aad tiriya jibiyeen hadduu meesha ka taliyo ninkan hadda kuu sheegaya Bukhari hana daalinin madaxweyne ra'iisul wasaare adigana hana daalinin dambi ha yeelanin nin dambi lama tiid nin fiican tahay aniga waxaan ku aragnaa inaan nin nadiif ah tahay laakiin adiga naftirkaada ma rabno inaad ugu noqotid Xasan Cali Khayre oo kale Xasan Cali Khayre marka hore wuxuu isku keenay nin malab ah kaali arag ah ummadda dhan kaali u riyaaqdi markii dambana wuxuu falkii cid kasta og adigana waxaan ku leeyahay ra'iisul wasaare sida iskaas oo kale ha ku soo bixin sharaf leedahay magaca leedahay waa lagu xushmadeynaa cid kastaana kugu xushmadeynayso marka waxaan ku dhiilahay adigana ninkaas oo kale haru noqon warkaygu waxaan ku soo gunaanada madaxweyne Xasan Sheekh wax badan ayaa ka qaldan horena waa kugu sheegay haddii jidka toosan aad ku soo laabo weysid anaga si gaar ah naceeb gaar ah kuma qabno laakiin jidka toosan hadaa ku soo laabo weysid waxyaalo badan oo noo qarsan oo hub badan oo noo qarsan oo ku dagaalana ayaan haysanaa hubkaas faraanka soo bixi doonaa weli is iyo qiimo aagteena ka leedahay waxaan ka rabnaa waxa afkaada ka imaanayo iyo ficilkaada haslaadaano madaxweyne Xasan afkaada waxa ka sheegaysa markaad meelaha ka hadlaysid iyo ficilka aad sameynayso waa inay islaadaan laakiin wixii inaad sheegtid ficilkan oo ka guddisan yahay aniga u jeednaa anaga wax ka hool kala ma hayno aan hooshas ahayn wassalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.